Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalayaal meel waliba aad adduunka daafaheeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni taxanaha noo ahay ee faa'iidooyinka qudaarta dalkeena. Barnaamijkan waxaa ugu magac darnay faa'iidooyinka qudaarta dalkeena qaybtiisa labaad waaye. Maanta ciwaanka aan kasoo qaadanayno ee barnaamijka waxaa ka mid ah faa'iidooyinka laga helo karootada. qaybtii koowaad hadaa soo fiirsanay description-ka kumatiga ayaa kusoo dhigaya linkigiisa soo fiirso. Waxaa ugu waramay faa'iidooyinka xabxabka iyo khasaaruu leeyahay soo fiirso. Hadda karootadan aan sheegayo karootadan wax khasaare ay leedahay oo hadda la xaqiijiyay ma lahan. Faa'iido mooyee karoota khasaare ay leedahay ma jirto. insha Allah waan soo wadaagi doonaa haddii wax ka soo kordho ee khasaare leedahay waan soo wadaagi doonaa, laakiin aniga karootada intaa ka maqlay faa'iido mooyee khasaare kuma arkin. Marka karootada waxaan sheegay karootada faa'iidooyinkeeda ayaa rabaa inaan kaliyo marka hore daawade soo dhawaaw muuqaalkan like saar asxaabtan u share gareey si ay ugu faa'iideystaan. warkina sii dheeray mirabiya faa'iidooyinka laga helo karootada number 1 hadda ugu hormaro indhaha aragooda ayay siyaadisaa. Karootada haddaa maalin walba shiidatid oo cabtid hadda cunoogeeda hadday ku dhibayso waxaa la sameeyaa waa la shiidaa. Haddaa shiidatid cabtid iyadoo wax sokor ah ku dar sokorta waa ognahay sokorta wixii lagu dar qashwa iyadoo sokor ku daran shiido cab indhahaada aragooda way siyaadaan. hadda indhaha aragooda way siyaadaan. waxay karootada kartaa waxay ka soo hortagtaa kaada xanuunka micnaha kaada heesta ee ficnaysa. Marka walaalayaal waxaa isku dardaarmayna inaan badsano karootada arageed noo ficnaynaysa kaliyaha iyo kaal mareenkana noo ficnaynaysa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi